oo ahaa intii aynu qaadanay registrationka wuxuu soo maray tadawaraad badan buu soo maray mar waxaa jirtay aan wax computerized ahayn oo kaard la qaadan jiray mar waxaa jirtay aan nidhaahda suulka lagu sameeyo markuu dambeeyay waxaan tagnaa iris ID waxa indhaha raashiwarka kiiba haddana la darsay xaguu ka iman kartaa daldalool kiiba ma company la keenay South Africana lacagta waxa bixiyay magaalada Ingiriiska tiibay soo bandhigeen si aan wax allaalay wax magaalada tuugi aan uga dhicin ana waxaan ka fikirnaa systemka si loo xadi lahaa moogta marka tiiba laga faa'iiday xagee ka xadi karaa xagee ka qaribi karaa marka system fiican baa loo sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa shaqo wanaagsan bay qabteen xafiiskii magaalada hay'adii maalgeliyo Ingiriiska ana aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa waxaan shacabka reer Soomaaliya u sheegayaa doorashadii way noo dhacaysaa waxaan leenahay hal diyaargarow waxa weeye baarlamaankeena iyo dowladweynaha hoose waxay noqdeen waqtigooda waa dhamaaday hadduu waqtigu dhamaadana wayna ka baxaan meesha 10 sano ayaynu hadda suginay inaan baarlamaan cusub helno waqtigii waa la gaaray waxaan leenahay ciddii doonaysa inay iska sharxdo xusbiga ucid waan bilaabanaa registrationkii soo keensadeen profilekooda soo keensadeen taswiirahooda shaqadii waa la bilaabiya bidnillaahi kariim doorasho fiican bay noo dhacaysa waxaan leenahay markaa shacbiga reer Soomaaliland waan ognahay shacbigana doorasho way naceen na wax isbedelay waay not going to better xagga wanaagsan xusoo wala waay laakiin waxaan insha Allah doorkan waxaan doonaynaa inaynu baarlamaan fiican wakiilo fiican iyo magaalada local council fiican inuu ka faa'iideysano qaladaadkii oo doonino inaynu qofka in xilka u dhiibina aan damiirkiisa eegno dhaqaalihiisa eegno akhlaaqdiisa eegno aqoontiisa eegno aan jecelahay waxaan shuruudan soo kordhinay insha Allah ta'ala aan jecelahay in la wadaagno salabada xusbi ma dhow ka dhigno shuruudo qaran lagu socdo si loo soo xul lahaa local councilka iyo magaalada marka waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland adduunku wayna sugiyaa dadku wayna sugiyaa diyaar garoow waan leenahay doorashadii talaabadii u horeysa la qaaday registrationkiisa khasa loo bilaabay insha Allah ta'ala dowladda iyo mas'uuliyiinta kala xisbiga waxay diyaar saxaafadaba kulmiyada waan mahadnaqayaa iyo qolada komishanka ee maanta barnaamijkan soo diyaarisay sidii Faysal u sheegay komishanku waxay soo diyaariyeen barnaamij aad iyo aad u tafatiran oo daahfuraya halkii ay mareysay diiwaangelinteennii ugu dambeysay ee dadka indhaha laga qaadayay in ay iyaguna sii diyaariyaan waxa laaliya wixii intii aynu diiwaangelintaa soo marnay duruustii laga soo bartay in maanta la sii diyaariyo waa tii isha oo la sii casriyeeyey oo maxaanku dhahdaayay la soo diyaariyey ayay maanta soo bandhigeen bandhiga aad u wanaagsan buu ahaa annagu labada xusbi haddii aanu nahay waanu la waafaqnay barnaamijka waxaana dadweynaha Soomaaliland ugu baahinaynaa aan u gudbinaynaa in ay isu diyaariyaan barnaamijka diiwaangelinta shacabweynaha reer Soomaaliland iyo qofka muwaadinka ee keligii ah barnaamijkan diiwaangelintu haddii uu galo waxay u suuro gelinaysaa in uu isagu doorto ciddii uu doonayay inay ka matasho meelaha go'aanka qarannimada laga gaadho maxaanku rahdaayay leadershipka ama hoggaanka guud ee dalka oo ba uu yeesho xubin baarlamaan u matasha oo uu yeesho xubin golo degaan oo maxaanku rahdaayay matasha aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadkana waxaan leenahay diyaar garooba hawsha imika way imanaysaa xisbiyadana dadkooda taageerayaasha ah iyo guud ahaan shacabkaba waan u gudbinaynaa waan kala qayb galaynaa idinka saxaafaddana waxaan jecelahay in aad barnaamijkan u samaysaan komishanka markaa kala xidhiidhaan coverageka ama maxaanku dhahdaayay soo diyaarisaan si dadweynuhu ay uga dhacdhacdo oo ay ugu qancaan barnaamijkan aad iyo aad baa u mahadsantihiin xusbiyada qaran shirkan iminka maanta saddexda xusbiba way ku marti qaadeen
maxaanku dhahdaa komishanka doorashooyinka xusbiga imika u cid wadani kul mid walba waxa maxaanku dhahdaa waajibkiisu uu yahay arrinta komishanka inaanu kala soo qayb galno waayo sharciga lagu maamulo hawlaha doorashada waa sharci qaran waxa baaskareeya golayaasha qaranka waxa maamula oo ku shaqeeya oo mas'uuliyadiisa leh komishanka doorashooyinka kulmiyana male u cidna male wadanina male waajibka iyagu annagu waxa weeye inaanu qaybteeda u soo diyaar garowno inaanu qaybteeda ka qaadano inaanu komishanka sharciga kula shaqeyno xisbiga kale de mas'uuliyadiisa annagu Allah iskuma hayo sharci qaran oo u baahan in ay idinkuna ilaalisaan dawladuna ay ilaaliso la idinku xadgudubin ma jirto telefishinada waxa laga xidhiidhaa arrintooda wasaaradda warfaafinta maxaanku dhahdaa waxaananu iminkana kala sii xidhiidhaynaa hay-adaha shuruucda maxaanku dhahdaa qaranka iyo hawlaha ka shaqeeya xadgudub saayid oo lagu gelayaana ma jirto waa mahadsantahay